xildhibaanada Hirshabelle ayaa ku kala aragti duwan siyaasadda hogaamineed ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ka codsadeen madaxweyne Waare inuu iska casilo xilka uu hayo xilli ay tixraacayaan balan madaxweynaha uu la galay xildhibaanada iyo shacabka Hirshabelle taasi oo ahayd inuu isaga qaldan yahay haddii ay isku dhacaan xildhibaanada iyo isaga bal aynu jaleecno maana taariikheedkan madaxweyne Waare uu balanta kula galay xildhibaanada iyo shacabka Hirshabelle fagaaro warbaahinta goobjoog ka ahayd waxaan halkan ku taaganahay kalsoonidiina waxaan halkan ku taaganahay dareenkiina waxaan halkan ku taaganahay rabitaankiina sidaas daraaddeed waxaan gaar ahaan martida sharafta nala joogta rabaa inaan caddeeyo markhaati ayaad ka tihiin kalsoonida maanta la siiyey haddii dhowr bilood ka bacdi aad maqashaan madaxweynihii iyo baarlamaankii is haysta qofka dembigaas iskale maanta waa kala dhaqaano malayn aniga iskale balantii madaxweyne Waare aragnay muxuu yahay codsiga xildhibaanada daliishanaya balantaasi waa kan xildhibaan Cali Ciile oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle waxna ka yiri balankii madaxweyne Waare mudane madaxweyne adigoo sharaf leh sharaftii shari lagu door balantii aad qaadi oo ahayd haddii aan 6 bilood shaqayn waayo waa idin ku soo celinaa sharaftii ikraamadii dhisiiseen haddii ay xildhibaanada qayliyaan ana gardarana beesha caalamka ee marqaati ka noqo balantii aad qaadi maanta ay taagantahay ku soo celiha ka bixin وفو بالأحد إن الأحد كان مسؤولا شعبك الصومالي أدي قاضي صحافة حرت أياد هرتاجنت قري كوها يسمى مجرين شرفتي إبلغات كده أمد داس الصومالي قارها هيرشبيل أدو قاضي ما أنت أي تاجنت هاي وحتى الشرف كل هذا هاي أديكو أمانا مدحوينا الشرف له إن البرلمان كان أنت كسو نقطة هذا أبي ما أهباور كان وودي وعسل هذا إن تكسو إليسو أياد شرفكو الله كي إن الميلها سكور رفته حلبان شلي وزير كاديجي ما يأتي inaad maanta tiraado wasiiran ka dhiga oo aad cimri dheeri ka raadiso wax sharaf iyo karaamo ay ku keenaysan balikin waa arin aan isleeyahay cawaaqibkeedana tii ilaahay ka sokow baarlamaanka iyo bulshada Hirshabelle way arkaysaa wayna ka jawaabi doonaan aadan odiwa qudhiisa baarlamaanka Hirshabelle ayuu ka tirsan yahay waxaana madaxweyne Waare uu ka codsanayaa inuu kursiga baneeyo maadaama uu gudan waayay wixii loo idmaday sida uu aaminsan yahay isaga waxaan leenahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare hoggaankaas aad iyo aad ayuu ugu fishilmay runtii mid la fiilay shacabka ay sugayeen ma aha shacabkii Hirshabelle taas uu ku hungoobay dib dhacaasna sababaysa waxa iska leh hoggaanka sare waana ku fishilmay si daacadnimada uu ku hogaami waayo marka waxaan leenahay haddii aan nahay xildhibaanadii dawlad goboleedka Hirshabelle in Maxamed Cabdi Waare maadaama uu ku fishilmay hoggaankaas inuu xukunka si degdeg ah oo isaga casilo xildhibaan Colaad Guure Xayo waxa walwal ku haya in wasiir 9 bilood mishaar la'aan shaqaynayay xilka laga qaado waxaana uu sheegay haddii madaxweyne Waare uu qaado talaabadaasi ay sababi karto xasilooni daro siyaasadeed waxaan sheegayaa inta la sheegay waa run nin la qoray oo la yiri wasiira tahay oo 9 bilood wasiir ahay oo kumin la siin oo la yiri maanta waa lagu bedelayaa karaysay si dhalinaysaa kala jajabay si dhalinaysaa burburay si dhalinaysaa xildhibaanka la leeyahay ana uu daafacaya waxba siinaya asiga ruuxiisu waa aaminsan yahay in xaq darro lagu dooranayo oo xaq darro loogu dhiibo deyd la isaga dhigayo bood lagu gambado la isaga dhigayo Hamdi Dol Sam News Jowhar